Asalaamu calaykum qaraabo kusoo dhawaada videogeena cusub. Videogan waxaan uga hadli doonaa xaaladda lagu jiro bariga dhexe iyo dagaalka Iran lagu qaaday iyo Strait of Hormuz iyo dhaqaalaha adduunka effect ku leedahay. Khaliijka maxay ku sameyn doonaan US investment ama investment oo Mareykanka u yaalo. Waxaan kaloo ka hadli doonaa oilka iyo defense stockooda oo kor u kacay. Waxaan kaloo ka hadli doonaa crypto store iyo stock marketka update-ka caadiyan aan sameyno oo chartiga aan galino kaas ugu dambeysin doonaan maanta. Soo dhawaada. Okay, dagaalka ka socda Iran waxaan rabaa inaan ka fiirino isha ku saabsan dhaqaalaha adduunka ee effectiga ay ku leedahay. Tan koowaad waxa weeyaan waa meesha ugu daran oo laisku haysto rawee Strait of Hormuz ama badda dhexmarta Khaliijka iyo Iran xuduudda u ah oo badankeed xuduudda waxa iska leh dadka la yiraahdo Iran. Marka taasa keenaysa inay ku leeyihiin awood tan kalena oo dhinaca Sacuudiga ay leeyihiin xataa way garaaci karaan dhulkooda waayo hadda dee wadankiiba garaacayaan u daahimayaan badda dhexdeeda. Taasna waxay keenaysaa saa ujeedaa in energy impact 20% adduunka oilkiis meelahaas buu ka yimaadaa. Waxa ugu muhiimsan oo dhib ugu badan u galayna waxa weeyaan in uu dunida oilka aad iyo aad saameyn adduunka ugu yeelato. Waxaa kaloo hata istaagay shippingka noocyadiisa oo kala duwan wax kasta cunto ha ahaato dhar ha ahaato alaab la isticmaale ha ahaato wax kasta oo jidkaas maraya jidka ugu biisisan weeyaan isaga iyo kan Egypt iyo mara maxaa la dhahay oo anaga xataa dhinacaas iyo waqooyiga naga soo maro. Saa ujeedaan xaaladda aad u adag tahay dadkan dagaalkan inta dagaal ma ahan runtii wuxuu noqon haddii uu sii socdo hadduu hadda joogsado usbuuc ama laba usbuuc gudahooda ama ku joogsado xaaladda waxaa laga yaabaa inay isdejiso laakiin uma inay laba usbuuc ku ekaanayso haddii sii socotase xaaladda economic adduunka ku yeelanayso waxaa laga yaabaa inaan depression galno sidii aan u galnay sidii adduunka u galay ama Mareykanka u galay 1929 camal. yaa waay wadamada uu ku leeyahay effectiga weyn arrintan oo la xiray Strait of Hormuz. Adduunka hadaynu dhahno saa ujeedid shibka iyo wax soo maro oo waxay ku qasban yihiin inay maraan dhinaca iyo South Africa. Africa intay hoos ka aadaan inay hoos ka baxaan oo South Africa maraan oo ay markaas hadday Yurub aadaan haddana kor soo noqdaan Yurubkooda aadan haddii kana meelaha ka dhacaan. Waa waxaan ka imanayo meelaha kale oo awal EU-da maxaa la dhahaa ama Imaaraadka fadhiisan jireen oo lagu kala bedeli karo Yurub wixii loo diray adduunka meelihiis kale. Waxay ku qasban inay hoostas maraan haddii especially Mareykanka iyo Yurub u socdaan. taasoo keeni karto dhibaato weyn waayo haddii ay dagaalku sii weynaado Hormuz kale lama xiraayo waxaa la xiraaya xataa Yemeniga Xuutiga waxay xiri karaan midka kale anaga iyaga noo dhexeeyo badda cas taasoo idan jecla. Marka yaa wadamada ugu daran oo runta effect ay ku leedahay ugu horeysa waa Japan 90% oilkooda wuxuu soo maraa Strait of Hormuz. Macnaheedu waxa weeyaan in laga bilaabo maalintii la xiray ilaa iyo hadda wax oil aysan u tegin haba yaraatee. Marka iyaga waxay leeyihiin ama prime ministerka maxaa la dhahaa Japanese wuxuu leeyahay waxaan haysanaa 254 maalin oo oil reserve ah. Adiga waa iska 8-9 bilood camal weeyaan. 8-9 bilood camal. Hadduu dagaalkan hal sano noqdo korontada oo Japan waa la xiraaya unless ay meelo kale ka hesho oilkeeda. yaa kaloo iyadana isaas camal effect ugu leedahay waxay kaloo saas effect ugu leedahay Europe iyagana weliba waxaa laga yaabaa inuu aad qaali ugu noqdo oilka ujeedaan $100 per megawatt. That is incredible. nasiibuna horta anaga hadeertaan aniga Europe aan deganahay winterka waan ka baxeen minada taas bay tahay laakiin hadduu dagaalkan sii daaho winterka soo socda macnaheedu waa qabab waa lagu marayaa. So xaaladda ma fududa korontooyinka baa nagu qaaliyoobay waa xasuustaa
markii dagaalkii ruushka ay ku qaadeen Ukraine waday Europeans waaleen dheheen anaga oil kama qaadaneen ruushka waxaan bixinaynay oil maxaa la dhahaa gaaska ama koronto gaaska especially oo awal la bixin jiray $50 $100 hadda u badan ayay dadku waxay bixinayeen $1,000 haddaa villa degan tahayna 2,000 iyo 3,000 laga hadlaya marka waxaa bixin jirta $100 $200 hal mar hadii lagu dhaho gabar 1,000 2,000 keen marka dhibaatadaas bay leedahay oo effectaas anagu nagu yeelan kartaa sida ujeedaan dadka la yiraahdo Europeanka distributionka marka EU hadii la dhaho waa in distribution lagu sameeyaa wixii inventory ay haystaan wixii oil oo reserve ku yaalo reserve soo egtana ma badna waayo waagii dagaalka Russia 2022gii ayay reserve badan isticmaaleen especially markii pipeline-ka la qarxiyay oo u dhaxeeyay Ruushka iyo Jarmalka taasoo keentay hadeerta in ay ku jiraan xaalad reserve badan aysan haysanin oo ay keeni karto political chaos ay keeni karto economical chaos shaqo la'aan adeeg xaaladda ma fudud aan ku waramay yaa kale effect ku yeelan kartaan Strait of Hormuz hadii la xiro waxay kaloo ku yeelanaysaa wadamadan khaliijka wadamada khaliijka cuntadooda majority cuntadooda waa import inta saa ujeedid especially Qatar 90% cuntadeeda waa import taas waxaad u badana badda usoo martaa cuntada marka waxay ku leeyihiin only alternative ay heli karaan waxa way in jidka lasoo maro oo Turkiya cunto looga keeno laakiin Turkiyana waxay keenaysaa waa yarta hal wadan awal cuntada waxay ka keensan jireen adduunka oo dhan marka hadda hal wadan kaliya ka keensada dhibkeeda leedahay nasiib wanaag ilaa iyo hadda dagaalka Iran hayso kuma qaado infrastructure-ka oo wadamada khaliijka aad uma taabato especially meesha biyaha iyo biyahaas badda iyaga ay maxaa la dhahaa macaansadaan haddii taas la taabto oon gaajo xaaladda khaliijka ma fududa runtii waxay soo bixisay inay yihiin baa soo baxday waxaa keenaya muslimiinta diiday inay isku xirnaato oo ay noqoto sida maxaa la dhahaa ilaahay diintana loogu talagalay okay waxaan kaloo rabaa inaan taabto wadamada khaliijka ah iyo Mareykanka wax ugu jiro saa ujeedaan meeshan ugu qoran tahay 6 trilyan ayaa ku jirto maxaa la dhahaa US financial marketka marka maxay leeyihiin inkastoo aysan weli ahayn official laakiin ay review ku sameynayaan ama ay wadahadal ku bilaabeen in ay kala soo baxaan waqtooda hadday taas dhacdo marka waxaa dhulka galayo suuqyada Mareykanka stock marketka dhan dhulka galayaan taas waa inay joojiyo inay invest gareeyo hadeertan oo aan pass u sameeyay awal waxaan ku fakaray account yar intaan bilaabo aan idin tuso sidaan u kobcinayo oo bishii minimum $100 waxaas ku shubo wixii aan ku shubayo oo aan idin tuso aan u kobcinayo inay noqoto tusaale idin noqoto camal ayaan rabay laakiin waxaan rabaa in horta dagaalkan meel lagu soo ogaado iyo xaaladda financialka ku aanfito crypto effect ma ku leedahay crypto effect way ku yeelanayaan waayo way ku jiraan iyaga naftigooda laakiin crypto waxaa laga yaabaa wax ugu jira inaysan kala bixino maadaama aysan US financial market Wall Street-ka aysan maamulin inay waxooda meesha ku haystaan laga yaabaa laakiin stock marketka ay dhulka geliyaan waayo 6 trillion 6 trillion dhulku gelayaa believe me dhulku gelayaa 2008 waxay noqonaysaa January marka arintaas ayaa jirto iyadana oo runtii meel xun marayso dadka khaliijka ma ku faraxsana sida uu Mareykanka u khiyaamay marka la dhaho difaaca wuxuu kaliya oo jeclo ka yeelay inuu Israa'iil difaaco asaga naftiisa maanta wuxuu uma hayo laakiin uu iyaga difaaco laakiin wadamada khaliijka dhan uu ku yiraan waxa idin ma hayo inta hardana Israa'iil baan ku difaacaya way wada xanaaqsan yihiin markii hadda oo iyagana waxay bixiyaan trillions of dollars yuhuudana Mareykanka lacag siiyo ay ku gadanayaan armigaas so shilinka ma baxo kan khaliijka trillions baa ka baxda billions of dollars baa ka baxda waxna meesha kuma hayaan so 250 billions in defense deals ayaa hadeertan soo ogtahay khaliijka joojiyeen waayo defensigan waxba tareen maxaa 250 billion uga bixinayaan waa su'aal weyn oo meesha taala
een taas waa midda kalena waxa weeyaan in ay leeyihiin Washington ay dhehayso ama ay ka walwalsan yihiin xiriirka iyaga iyo Mareykanka iyo wadamada khaliijka Gulf wadamada khaliijka ka dhexeeyo in uu xumaado. Waayo wuu xumaanaya waayo haddii dadkan difaaci ay kaa gadanayaan waxba taraynin oo aad u noqotid sababta dagaalka loogu qaado wadamada khaliijka ma aha because Iran iyaga inay dagaal kula jirto waa US basiskay u socotaa macnaheedu haddii aad diyaarad ama drone lasoo dejiyo waxay ku dhici kartaa meel dadka degan yihiin waxyaalo dhibaato kale u soo gaari karto iyaga aan awalba loo socon waxay leeyihiin haddii aan difaac kaa helaynin oo difaacaaga waxa uusan taraynin then ubada anaga noo keenaya dhibaato inaa beesaskeena meelaha nooga furan yihiin beesaskan dib damba uma dhisaysaan waxaan la burburiye dib damba uma dhisaysaan naga fogaada inay dhahaan taasna waxay keenaysaa dhibaato weyn marka waxay ku leeyihiin waa the biggest test in decades macnaheedu waxa weeyaan imtixaanka ugu horeeya oo xiriirkooda ka dhexeeya uu mari doonaa uusan marin sanadaad badan iyo tobaneeyo sano badan oilka iyo defenska ayaa waxaa lagu leeyahay suuqa aad buu cirka u galay oo waa suuqyada ay u shidan tahay waa idiin sheegeen market update isbuuci hore in defenska uu runtii uu noqon doono stockyo profit sameyn doono ama uu kor u kici doono stock market pricekooda sidaasoo kale oilkana maadaama uu waxa yaala uu yaraanayo waxay keenaysaa inta yar oo waxay raashiya haysa iyo wixii meelaha kale soo mara oo la hayo in ay noqoto qaali u noqdo lacag badan ay ka bixiyaan marka aan fiirino priceda bishii waxa soo dhacay so tan waxaan ka dhigay bishii oo dhan so inta ujeedaan bishii oo dhan baan ka dhigay si aan u aragno ayaamihii lasoo dhaafo oo dhan so tan waa enerjiyadii mujeedaa si cagaar u tahay cagaar qurux badan waxaa dhan soo jeeda marka kuwan waa labada ugu waaweyn iyaga profitkooda waa just small laakiin fiiri kuwan yaryar kulli waxaa laga hadlaya ilaa iyo midkan TPL-ka in 51% profit ay kusii jiraan 19% 16% ay ku jiraan profit so aad buu cirka ugu socdaa oo wixii wax meelaha kale laga soo bixinaya meelaha dhan wax laga soo bixinaya intaa la gelinoyaa sidaasoo kale shirkadahan kalena waa ujeeda iyagana iyaga galin kulligood oo oilka iyo gaaska kuwa ku saabsan marka haddii aan fiirino sidaasoo kale defensigana inta aan ku fiirino maxay ujeedaan iyagana magacyadanito dhan magacyadan oo dhan waxay ku tusaysaa inay iyagana profit ku jiraan 90% 33% Axon aad bay cirka u gashay sidaasoo kale HWM maxaan ka hadlaynaa 19% iyagana aad bay cirka ugu jiraan oo way u socotaa marka suuqyo labadan suuq waa laba suuq lagu xisaabtamaya in ay profit fiican sameynayaan oo lacagaha meelahan dhan laga soo saaray inta gelayso okay so taasna waxa weeyaan oilka iyo defensiga in uu stokyadeeda ay cirka ku shareereen ambal chartiga galna hal mar iyo xaaladda lagu jiro beligan aadaynaa waa SP 500 kan ka bilaabaya tokadanito SP 500 saa ujeedaan meeshii aan ka sugayay way timid laakiin dagaalka maadaamuu dhacay aniga dalaq iskama oraneen waan sugayaa waan arkaya xaaladeeda haddee tan kasoo hoos marto meelahana loo soo socdaa zoonkana loo soo socdaa zoonkaas hadii lasoo aadana waxa weeyaan waa meeqa hoos la aadaya macnaheedu waxa weeyaan kan waa kii 2025kii ya zoonkan wuu iman karaa si fiican buu iman karaa weliba oo wax weyn kuma fadhido runtii meeqa percentage ayuu hoos laga yaaba inuu sii aado wuxuu hoos aadi karaa dhahno priceka intuu ku xiray horta kow priceka korkaanu ku xiray so wuxuu hoos aadi karaa 5% it is possible boqolkiiba boqol waayo dagaal baa socda oo Mareykanka lugihiis ku doontay Trump uu lugihiis ku doontay dagaal laga garaacoyaa alxamdulilah waa loo baahnay dagaal laga garaaco marka iyadana waa ujeedaa xaaladaas ku jirtaa waa laga yaabaa inay zoonkan timaado in fact it's very plausible because suuqa Mareykanka wuxuu hadduu dagaalkan daaho wuxuu ku dhici doonto 2008 kii nabad noqon doon
taas waaye xataa ani waxaan rabay inaan account $100 ku shushuba idin tuso sidaan u manage gareynayo saan stockyada u gadanayo waxaas idin tuso laakiin hadda waxaan rabaa inaan sugo oon suuqa gal horta aan meel kusoo ogaado dhinac loo dhaco dagaalka duciyo u dhamaado waxaa laga yaabaa xogaa inaan suuqa adduunka uu wax yar oo recession galo laakiin uu ka bixi karo haddii laakiin dagaalkan uu daaho marka sida la socda kan waa SP 500 oo kan islaamiga ah weeyaan isagana zoonkan baan ka sugay inuu imaado weliba meeshan inuu kasii hoos maraan laga yaabaa waa arkeen asagana meesha laiskala dhaco waa kii SP 500 nasdaq markaan fiirino actually nasdaq isagana ujeedaa kor u qaada hoos u qaada haddana waxa laga yaabaa inuu hoostan tago which makes sense because markaas micnaheedu waa SP 500 meeshii hoose aan ka sugay inuu isagana aado price intuu ku xiray ilaa xagga isagana waa another 5-6% almost so inuu isagana amazonkaas aado ayaa laga yaabaa sidii ii xisaabsaneed nothing new markan aan aadno hal mar crypto waxay sameysay ayaamihii kow markuu dagaalka bilaabo koray xoogaa soo aaday oo waxay ku soo aaday around 10-15% adii wax 15% ka yar hoos kor soo aaday laakiin saa ujeedaan hoos buu socdaa so aniga in fact waxaan jeclaan lahaa mise wuxuu sameeyey waxaan jeclaan lahaa si corrective ah inuu ku jabiyo weliba si xoogan ma rabo inuu ku jabiyo si corrective ah oo wuxuu dhan isku noqdaan hal corrective isku noqdaan markaas aan aragno inuu baa aadi karo laakiin haddii uu 3 touch sameeyo uu intuu baxo oo haddana intuu malaha warwareegto haddana 3 touch soo noqdo saas ku helno kan ayuu u ekaanaya micnaheed waxaa impulsivekan impulsive leg baa hoos soo aadaya and that is waxay sii dheereynaysaa waqtiga because hadduu impulsive xoogan intuu ku imaado haddana correction inuu galo weeyaan ama inuu sii socdo taasoo keenaysa in uu suuqa ka hoos maro maxaa la dhahaa damaandiganeeto uu ka hoos maro okay damaandiga hadduu ka hoos maro meesha waxa weeyaan wax loo socdaa zoonahan ama zoonkaneed xataa inuu u tago ama zoonkan sii aado markaas waxa weeye micnaheedu dagaalka sii dheeraada balaaya aan madaxa la galin aan fiirino iyadana solana waa the same thing haddaan daily tagno juujug meesha joog cusub dhinacaneeda kama jiraan sameyno SP 500 meeshan ka sugay waa tagtay tan weli waa soo nikinaysaa marka nikada dhan mas'alaha na gaarsiiyo waxaan rabay inaan kusoo daro awal waxaan hayay bitcoin solana iyo ethereum baan hayay oo kulligood xaalad ku jiraan waxaas iri bal XRP iyadana fiiri maadaama aad rabisu tahay waayo 80% waa saddexdaas waxaa invest gareynaya waxaan jeclay mar walba inaad 10% aan banaanka lacagta ku taala meesha inay 10% ama ka yar xataa laakiin gooni waxay ku xiran tahay lacagta kugu badan tahay inaad gooni u dhigtid oo markuu suuqa dib sameeya aad markaas DSA ku samaysid ama aad bayda dib ku samaysid aan dhahno marka waxaan rabaa qayb ka mid ah inaan ku gato crypto yar oo raqiis ah hadda kahor waa gatay midan soo arkena haddana inaan markala gato marka iyadana intee ku jirtaa marka hal mar aan isla falanqeyno sida aan u falanqeyn lahay tusaya maanta waxaan ka bilaabeynaa monthlyga so premium and discounting ayaan dhigaynaa intaan dhigaynaa xaaladaas ku jira suuqa meelahan waa meeshii kow dhamaantii ugu horey kana soo taabtaba haddana koray aaday markuu soo noqon minaad waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu zoonkan isla imaado zoonkaas in isla imaado waa zoonka ugu hooseeyaba in isla imaado zoonka haddii la isla imaado aan weeklyga tagno weeklyga minaad waxa weeyaan isagana aniga waxaan jeclahay inaan last malaan inay timaado ayaa laga yaabaa iyadana minaad waxa waa $1 ay ka hoos marto okay this is not even maxaa la dhahaa shaqeynaya waayo saddex touch uu soo sameeyey kor u aaday so maybe something like this will be more reasonable waa arkena iyadana anyway zoonkan inay soo gasho ayaan sugaya iyadana aan daily tagan marka ayaan aragna xaaladii ku jirto waa very similar xaalada kuwa kale ku jiraan so nothing different
meeshan waa laba taj, so laba taj ayaa meeshan u yaala iyadana sida bitcoin, kuwa kale saddex taj iyo afar taj way marayaan. Marka iyadana waxaa laga yaabaa inay something like this sameyso and then boom waa arkaynaa, ama inay correction noogu tagto which is the best scenario, ama correction ay noogu tagto markaaseeto waa perfect weeyaan markaaseeto. Okay, and yeah, wax dhan waa cover gareynay. I think that's it. waa inuu intaas insha allah iyo isbuuca soo socdo ayaan isku ognahay. ilaahay nabadda ma aragtaa hana soo dhex dhigo. ilaahay insha allahu tacaala khayr, waa inuu isbuuca soo socdo nabad, nolol iyo caafimaad aan isku ognahay insha allahu tacaala. wabillahi tawfiiq.